xildhibaanada u kala xaraysan madaxda maamul goboleedyada qaarkood ma noqon karaan kuwo ay ku guulaystaan hagidooda ilaa iyo inta codka ay ka siinayaan baarlamaanka guddoonka ay doonayaan iyo madaxweynaha ay la doonayaan madaxda maamul goboleedyadaasi. markasta siyaasadda soomaaliya waa mid ay ku soo kordhaan xeelada cusub marka la joogo wakhtigan xasaasiga ah, taasi oo ay la yimaadaan hogaamiyayaasha talada haya si ay xukunka usii adkaystaan. waxaase inta badan fashilma isku daygooda, kaasi oo ku dhammaada meel cidlo ah. sanadkan oo ah mid ka mid a sanadyada ugu culus ee doorashada soomaaliya, waxaa ku soo kordhay xeelada ah kala xaraysiga xildhibaanada oo ay maamul goboleedyada qaarkood ay meel geysteen xildhibaanadii laga soo doortay maamul goboleedyada kale ah Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid a xildhibaanada reer waqooyiga ayaa ah kuwo hoos jooga mas-uuliyiintii gacanta ka siiyey inay soo baxaan. amarkooda la-aantoodna ma jirto tallaabo ay qaadi karaan, taasi oo ah wax ku cusub saaxadda siyaasadda soomaaliya. taariikhda siyaasadda soomaaliya marka dib loo eego, ma jirto mas-uul jajoob madax ku soo noqday ama heega sare ka gaaray. sanadkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha soomaaliya 2016 madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahaa inta badan ninkii soo saaray xildhibaanada doorashada wakhtigaasi ku soo baxay, ayaa habeenkii la dooranayay saacado ka hor subaxa la dooran doono waxaa in ka badan 200 oo xildhibaan u ballan qaadeen inay codkiisa siin doonaan subaxii markii waagu baryo hoolka doorashadana la wada tago. waxaase beenowday ballanqaadkaasi dhammaantoodna inta badan waa ay uga baxeen, mana jirto cod la siiyey. waxa uuna helay cod aan ka badnayn 90 xildhibaan. si kasta oo loo cadaadiyo xildhibaanka, loo caburiyo afkana loo qabto, go-aanka ugu dambeeya ee codbixinta waa mid isaga u khaasa, mana jirto cid korjoogtayn karta ama ilaalin karta marka uu codka bixinayo oo uu keligiis yahay, taasi oo ka dhigan inuusan jirin xildhibaan aragti leh oo la qasbi karo, codkiisana la maamuli karo. waxa uuna codkiisa siin karaa qof kasta oo la jeclaado, maadaama marka uu qorayo warqadda codbixinta uu keligiis yahay, meel gooni ahna uu joogo. kala xaraysiga xildhibaanada soomaaliya waxa uu noqon karaa mid meel cidlo ah ku soo dhammaada marka hoolka doorashada la fadhiisto. waa haddii la helo xildhibaano xeeldheerayaal siyaasadeed ah, kuwaasi oo leh aragti ka maran sadbursi, ninjeclaysi, cabsi iyo xukun raadis. waxa ayna soomaaliya u doori karaan mas-uulka ugu habboon ee dalka ka samata bixi kara xaaladan cakiran. marka la joogo soomaaliya ma jiro iskuday siyaasadeed oo sidii loo qorsheeyo u fula, waxaana isbeddel ku yimaada qorshe kasta oo ay degsadaan kuwa raba inay xukunka si dadban u marooqsadaan. waxa ayna u badan tahay in kala xaraysiga xildhibaanada soomaaliya uusan u miro dhalin sida ay u qorshaysteen kuwa ku dhaqaaqay. haddaba daawade, maxay kuula muuqataa adiga? aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee faallada. muuqaalkan sii sheergaree si uu saaxiibadaada u gaaro.